kulanka ugu xiisaha badan horyalka Soomaaliya ee sanad ciyaareedkan ayaa galabtan ka qabsoomi doona garoonka weyn ee Muqdisho Stadium waxa uu dhaxeeya naadiyada ugu awoodda badan sanad ciyaareedkan iyo sanadihii la soo dhaafay ee MCC iyo si lamida horseed labada naadi ayaa wadaaga min 34 dhibco iyagoo ka aruursaday kulamadii ay soo ciyaareen kama dhigna inuu yahay kulankii ugu dambeeyay horyalka waxa uu dhiman min hal kulan hayeeshee waxa la aaminsan yahay inuu kulankani noqon doono kan go'aamin doona ku guuleysiga horyalka Soomaaliya haddii ay barbara galaan wali waa dood furan hayeeshee inta badan looma badinayo in ay barbara gali karaan marka laga fiiriyo dhinacyo badan xidigaha u safan oo ku wanaagsan weerarka iyo gool dhalinta ayaa sabab u noqon karta in koox kamida labadan koox ay guul gaaraan horyalka Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay waxa hananayay naadiga kubadda cagta MCC iyadoo doonaysa sanadkan inay difaacato horseed waxay la mid tahay kooxo waaweyn oo sanad ciyaareedkii la soo dhaafay marka loo eego Yurub ka baxay abaarta koobab la'aanta Talyaaniga Inter Milano ayaa 12 sano kor u eegaysa hanashada horyalka waxayna nasiib u heshay in ay ku guuleysato horyalka iyadoo kaga guuleysatay kooxo badan oo horyalkan ku tartamayay dhanka Spain Atletico de Madrid 7 sano ayay kor u eegaysay iyadoo ay ka kor qaadayeen labada naadi ee Barcelona iyo Real Madrid hayeeshee tababare Diego Simeone ayaa nasiib u helay inuu sanadkan koobkan ku soo celiyo guriga Wanda Metropolitano horyalka wadanka Faransiiska kooxda Lille ayaa 12 sano kadib heshay koobka kadib markii ay kaga guuleysatay naadiga Paris Saint-Germain hayeeshee horyalka Soomaaliya sanadkan waxa laga sugayaa in ay ka dhacaan waxa ka dhacay dunida hayeeshee MCC iyo taageerayaashooduba waxay doonayaan in ay bedelaan taariikhda ay dhigeen horyalada Yurub kooxaha ka dhisan sida Inter Milano Atletico de Madrid iyo Lille oo ka dhisan Faransiiska Talyaaniga iyo Spain haddaba horseed waxay horyalkan sugaysay ku guuleysiga muddo 40 sano ah waana kooxda ugu dheer ee horyal sugta kulankan waxa uu noqon doonaa mid ka go'aamin doona hanashada horyalka Soomaaliya haddaba adiga maxay kula tahay kooxdee ayaad rajaynaysaa in ay horyalkan ku guuleysato qaybta hoose ee faalada